Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkaygaan ku leenahay bartan fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe-ka guji gambalaalkana taawo si aad noogu soo biirtid muuqaaladeedna ay kuu soo gaadhaan. Muuqaalkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay saddexdaa wax oo mid kastaba uu leeyahay mucjisaad gaar ah aynu ku dhex arki doono qisadeena maanta. Tani waxay ku dhacday family dheer ah oo faqiirin ah isla markaana hati ka haystay dameer iyo 2 ay iyo 1 ul. Haddaba maalmaha ka mid ah waxa family-gu ku dhacay in ay waayeen maalmeedkooda ay quudan lahaayeen maalintaas, taasoo habeenkiina ku dhacay gobolkiina uu haddaba maxaad malanaysaa inay subaxii xigeen sameeyeen family-gii danyarta dheerta. Haddaba family-gii danyarta waxay sameeyeen subaxii xigtay inuu odaygu ku dhaho islaanta dameerka ay soo kacay kadibna suuqa geeyo. Islaantii aad ayay u carootay markii odaygu ku yiri dameerkan suuqa geeyo iyadoo u malaynaysa inuu dameerka soo iibinayo. Waxa islaantii odayga dheerta isqabsadaanba odayga dameerka uu qabtay uu kaxeeyay waxaanu geeyay suuqa. Odaygu wuxuu haystay shilimaad yar kuwaas oo baahi tireen family-ga dhammaan baahiyaha u baahnaa. Haddaba odaygu suu caruurtiisa ugu keenay nolol maalmeed iyo xaaskiisa waxa uu sameeyay shilimaadkii yaraa inuu dameerka afka ugu guro. Kadibna waxa uu dhex keenay dameerkii magaalada dhexdeeda bartamaheeda. Mar wala uu dameerku cunaa afka wuxuu ka soo diriyay shilimaad. Kadib waxa dhacay bulshadii ama mujtamacii joogtay suuqa dhexdiisa waxa ay arkeen dameerkan afka lacagta ka soo turaya. Qof kastaana wuxuu isku dayay inuu dhinacan dameerka soo dhaqaaqo. Suuqleyda ama ganacsatadii meesha joogtay waxa isku qabsadeen in dameerka laga iibiyo. Haddaba markii uu arkay ninkii dameerka lahaa in dameerkiisa la baahiyo waxa uu ka iibiyay ninkii ugu lacagta badnaa kaas oo isagu lacag aad u tiro badan sheegay. Kadib ninkii ganacsatada sidaas ayuu dameerkii ku qaatay. Ninkii faqiirka ahaana wuxuu lacagtii u soo qaatay dhinacan qoyskiisa. Maanta muuqaalkan intaas ayuu nooga eegay fadlan haddii markii wadan soo booqatay channelkayga subscribe-ka guji gambalaalkana taawo si muuqaaladeedu kuu soo gaaraan.